agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kormeeray kastamka magaalada Burco iyo tuulada Baariye qaar kamid ah xafiisyada wasaaradda maaliyaddu ku leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan agaasimuhu kulamo la qaatay madaxda xafiisyada kala duwan ee wasaaradda maaliyaddu ku leedahay magaalada Burco siduuha wasaaradda maaliyadda Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa ugu horeyntiinba agaasimaha uga warbixiyay sida habsamida leh ay shaqada qaranku uga socoto xafiisyada kala duwan ee wasaaradda maaliyaddu ku leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladiisii agaasimo guud farxad bay noo tahay maanta inaad noogu timaado safar shaqo shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer ka hawlgala iyo ood weyn oo lagu daray waa 135 waxyihiida kala duwan 135 kaas alxamdulillah xanuunadan faafa ee maagtay culayska weyn ku haya gobolka shaqaalaheenaas iyo ciidankeenaas way ka badqabaa alxamdulillah wax ilaahay loogu mahadnaqo ila saaka kormeerkii aad agaasime ku soo martay dhammaan xafiisyada wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer aad baan kaaga mahadcelinay iyo wadaagii alla wadaagtay goobaha shaqada aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayna geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan ayaa dhankiisa ka waramay kormeerkan ay ku sameeyeen qaar kamid ah xafiisyada kala duwan ee wasaaradda maaliyaddu ku leedahay magaalada Burco isagoona ka waramay sida fiican ay u shaqeynayaan shaqaalaha wasaaraddu waa kan agaasimaha oo arintaasi ka hadlaya haddii aan dul istaago ujeedada aanu u nimid gobolka saaka runtii wuxuu daaraa in aanu eegno guud ahaan sideebu u socdaa ololaha iyo dadaalka loogu jiro dakhli ururinta miisaaniyadda saddex biloodka waxaan ku dadaalaynay maadaama oo gabagaba ay ku jirto saddex biloodkii hore ee odoroska miisaaniyadda inaanu si dhow oo magaranaysa xogogaalnimo aanu u soo dul joogsano goobaha kala duwan ee gobolka Togdheer ee dakhliga soo saara si aanu u hubino inaanu bartilmaameedkii loogu talagalay aan runtii ay tahay inaanu gaadhno qodobka waxa nooga soo baxay dhammaan xafiisyada kala duwan ee gobolka kastamada cashuuraha bariga guud ahaan inay dadaal fiican ay muujiyeen oo ay runtii rajo fiican ay ka muuqato saddex biloodka in ay xidhaan ku talagalkii dakhliga qodobka labaad wuxuu ahaa inaanu dul istaagno sida uu u socdo nidaamka kharash bixinta guud ee gobolka Togdheer ee sideynta miisaaniyadda iyo maamulkeeda runtii ujeedada aanu ka leelahayna waxay tahay in miisaaniyaddu ay noqoto miisaaniyad soo gaadha amba la bixiyo amba la sii daayo xilligii iyo waqtigii loogu talagalay taasoo qayb ka ah dadaalada wasaaradda maaliyaddu ugu jirto in ay ku wanaajiso nidaamka maamulka maaliyadda waana qodobada runtii muhiimka u ah inay soo jiitaan ganacsatadeena iyo dadyooga kala duwan ee dawladda la macaamila inay aad u daneeyaan in ay daba socdaan amba ay ka helaan iibiya qandaraasba dawladda Maxamed Wardi TV qaranka Soomaaliland Burco.